inaad na siisaan noona mehelisaan. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفقد. زين الدين أي فريستان ما والكاميرمان في سسة بس كان فرنسا تيجي لك على وش من الواحد يبقى تصور السين الله بلا شيء يقول السين إن شاء الله ترسمي أفعال لكن عن سكون من هذه أفعال وكم مدها ووين وما يما عليه إلهنا سبحانه وتعالى وجعله هاي وغير مسلمة وحوي المارك باللابانية gabadh iyo wiil oo la isku mar kulinayo halka marka qoys muslimiin ayaa ka aasaasmay waxa weeyaan bani aadamka iyo tarankiisa waxaa aasaas u ah maaragtay guurka hadduu guurku yaraadana tarankii baa yaraanaya sida marka waxa weeyaa qaalibka hadduu guurku batana tarankii baa badanaya marka ilaahi subxaana watacaala markii uu إلا هذا عبوري مركي بفيدي سبيل بالقضاء أبو حوا. اللي عملنا حطوا لقيت مرة إنه خصوصا نساء أو نكفهم إنه قرآن كي سنة. إنه المركة هو إننا ونشتري حقنا ونشتري كذا تمر لا هو رجلان نشتري. الله إله سبحانه وتعالى سي شو مرتي خمس تران. الدنيا إنه مركة وسيتي. الله سبحانه وتعالى سامر قوي وقوي. هو أنت كنت هذانا براوتشين oo marka fursad aan rabo in uga faa'iideysto daamaan dad muslimiin nahay inaan waxa weeyaan inuu isbaraarujino oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu isfiirsino oo inuu aakhirada iyo wixii naga dambeeyo isku wacdino waa min diin weey diinteena ina faraysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladhina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وإلهي سبحانه وتعالى ضدكي بني آدم في الأمان ضد خسارة سوية خسارة يكتشلون الدنيا آخرة وقوة خسارة وين إلا عفر إن العدي لقاها المويين عفر تعرف إن وطتك لقاها رؤية بالبالي يعني الدنيا لنا نلونا أحسن يكون ورانا يعني آخرنا وهو يتشنى هليا وعلم في إلهي عقاب تسكب بالبالي يعني عاكوك إلا الذين آمنوا هو إله الرمي سبحانه وتعالى dadkaas waxa weeye iimaanka laga helay waa dadka badbaadaya ilaahay bay rumeeyeen jiritaankiisa inuu ilaahay subxaana wataala jiro sidina doono kelinimadiisa rumeeyo ilaahay inuu keligii yahay subxaana watacaala وإلهكم إله واحد من الله سبحانه وتعالى إله العبد الإنسان ومثل كليه وي لما إله ما صدح معها إن كبر ما مثل كليه ويان سبحانه وتعالى ألقى مرة قلتك صدح إله رميسان أو كبر مرة رميسان بعد داقة لقى سعر إله سبحانه وتعالى كليه وي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إله عليه سبحانه وتعالى حلك يا روك هي لحظة أنت كسر السبع حتى لما إله تشيل لهين وفي هذه لهين ورسوق بصنع سيدا الدنيا أنا كان يعني ملاحظة يو ماركا وحاول يدورون سوق بصنع يعني أو دجالة ودعيو أيضا مركا إلهي دون سوق بصنع هاي سبحانه وتعالى مركا إله وكليه سبحانه وتعالى عد مركا وحاول يلا بيسا يعد وحلا ما مشى يعد وحاول حلا يعد وحقوق بصنع كرتا منا متر سيدا كليه سبحانه وتعالى سيدا قدونا دليا قدونا نولينيا
markuu doono roob keenaya, markuu doono abaar keenaya, markuu doono caafimaad keenaya, markuu doono cudur keenaya. cudurrada hadda waxaa caalamka laga qaylinaya ilaahay subxaana wa taala ayaa keena isaga maana qaadi kara. kuu doono waxaa weye awlaad buu siinaya, yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuuran. kuu doono ilaahay subxaana gabdhuu siin, kuu doono wiilal buu siin, kuu doono uu isugu daraya, wayajcalu man yashaau caqiiman. kuu doono waxa ilaahay subxaana madhalis buu ka dhigaya. marka ilaahay in si dhaba loo rumeeyo, awooddiisa la rumeeyo, kelinimadiisa la rumeeyo ayaa waxa weye midda koowaad lagu badbaadayo. qodobka labaad lagu badbaadaya waxa weeyaan وعملوا الصالحات وعملوا wanaagsan sameeyay. ilaahay ma rumaysnahay qof muslimaan ah la ilaaha illa kaliya markaas oo ameesho wixii ilaahay ku faray oo mar waa inaad timaado salaadii aad tukato bisna waa aad soonto xoolaha dalay sidada ka bixiso carruurtaada aad tarbiyeyso xajka aad tagto qaraabadaada xiriiriso dumarka xijaabka qaataan xuquuqda marka waxa lagu lahaa ee tii waalidka iyo tii xaaska iyo tii marka waxa weeye carruurta iyo kulli aad biyato tii qaraabadaba awaamir baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala siinaya waxa ilaahay uu naga reebaya. marka waa camilu saalihaat camalka waxa saalixa waa wax kasto ilaahay jecel yahay. camal saalix waa ilaha kullu ma yuhibbu Allah wa yarda. wax kasto ilaahay jecel yahay raalli ka yahay ayaa camal saalixa. wax kasto ilaahay subxaanahu wa ta'ala jecel yahay inaad ka hadho camal saalixa waa kaas weey. qodobka labaad lagu badbaaday weey. qodobka saddexaad waxa lagu badbaaday waxa weey watawaasaw bil haqq haqqa dardaarmay. sidoo kale waxa weey in ilaahay laga cabsado xaqa marka waxa weey la guto la ismarka waxa weey tacaawuno walaalo la noqdo qabyaalada la iska daayo maxaa ma tafarruqa iyo xisbiyiisa kooxaysiga la iska daayo mid la ahaado dadka loo dardaarmo in aakhir waxa loo diyaar garow in waxa qabriga qiyaamaha laga fikiro. qodobka afraad waxa weeye watawaasaw bisabr sabarka waxa weeye la soo dardaarmo markaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala caawiyayso diinta aad ku dhaqmayso oo dunyada dhibaa ku maaragtay waxa weeye kusoo wajahay Allah inuu qofku xanuunsado Allah inuu marka faqri ku dhaco waxa laga yaabaa bani aadamina marka ku dhibaan oo marka waxa weeye aad ka badbaadi weydo waxaas oo sabir buu baahanta dulqaad buu baahanta maaha waxa weeye adduunyadu wax maartay meel waxa ubax lagu goglay oo la iska dul marayo oo had iyo goor waxa weeye aska nimcaysanaysa maaha intaas marba waxa weeye tataqayar wa talawan marba si uga jiba ku tusinaysaa maalin waxa weeye ka farxinaysaa maalin waxa weeye ka maartay way ka murginaysaa marka waxa weeye wixii qiimaha kugu yimaada xag ilaahay kaga yimaada xaqka adoomada kaga yimaada sabir buu baahanta in Allah ma'a sabirin ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka sabra marka sadarta waxa loo baahan yahay afarta arrimood inaynu xaqiijino. imaam Shaafici rahmatullahi alayhi waa sheekh marka culimada oo muslimiinta kamid ah waliba Soomaalida si gaar ah u sii ihtimaadeen annagu Shaafici nahay madhabta Shaafici imaam Shaafici baan haysanaa. sheekhaas markuu waxa suurada sharciga wuxuu yiri law ma anzal Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum. hadduu ilaahay wax quraan iyo wax daliil oo soo dejinin wax diin oo kala suuradan mooyee wal casr suurada yar saddex aayadooda way ku filan lahayd. waa suurada wax kooban laakiin macna ballaaran bay ka hadlaysaa wax kasta oo bani aadamka looga baahnaa wuxuu adduunyada aakhirada ku badbaadi lahaa ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala maartay ayuu ku dhamaystiray suurada ku sheegay. marka asxaabta radiyallahu marka la tagayaan suuradaas isku akhri jireen oo marka wal casri maartay daa'im bay oran jireen suurada waxay nafarayso ha iloobi. marka sadarta taas inuu soo daarmayna inaynu marka hore mas'uuliyad bayna saaran qof kasta waa mas'uul weey lagu hadda mas'uuliyad maartay haday toodi gabaan in la ilaa marka wax qabtaan in nabadgelyada saan dhahaan laakiin wadooyin ka sameeyaan way marka dhakhaatiirta iyo isbitaalka iyo marka tacliintii marka caafimaadka dar yeelan qof kasta oo mas'uul baa tahay nabiga inoo arinka noo sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi qof kasta waxa idinkeeda kamid waa mas'uul weey qof kasta waa la weydiinaya. wuxuu nabiga ka bilaabay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka bilaabay ninka madaxweynaha الإمام مسؤول راعي وكلكم حاويان ومسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لما أنت يا رجال بعد نحمل الذين دري وحمل الذين ديبل إمامك أو مدحوينه وحاول مسؤول وراعي ويراليه وأنا لو يدينا يا بالشراء يا مرك هوش هاي والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته نمك هو مسؤول صدق من الحديث مسؤول قبلين نمك هو حاول مسؤول ويا نمك هو مسؤول ويا وحين مسؤول كيا حاس كيسة هير كيسة عروض كيسة أيوة مسؤول كيا وأنا لو يدينا إلى كيسة دين تود يا مرك الدنيا ده ولا يدينا يا أوين هذا مسؤولين ومسؤول حاول لو يدينا يا رعيته نين كذا يا عروض تود يا مرك لو يدينا يا نين كم ملاحظ نين كوحويا ما شقالها أما أظن كإنه نجح هذا هين ومسؤول ويا وراعي ويا وأنا لو يدينا يا وأنا قف كسر مسؤول ويا أنت عشان الله تعالى كذب أو شو نقول لك وحنقدر دار منا يقول كمان كوحويا أنا هذا الوضع ما صنايع إنه مركب حاول مسؤوليات مقاضية سكنوا حاول تعود بيسين لحتى سيقول رسيقه رسين له جوده حاول يعني
aad maanta waxa weeye soo doontay sidaa fiican oo soo doontay oo waalidka ku sharaftay oo waxa weeye qod basire iyo marka waxa weeye meelaha maartay waxa weeyaan aadan waxaasoo dhan ka shootay meeshan la marin waxaa loo baahan yahay saad hadda u xurmaysay inaad hadda kadib una xurmayso oo gabadha waxa weeye diinteeda mas-uul ka noqotay goobaad adduunyada inaada mas-uul ka noqday gurigooda ku asturayda joogtay oo cunto iyo cabitaan iyo dhar iyo wax walbaba aabaheed iyo hooyada mas-uul uga ah maanta aday kugu soo wareegtay inaad marka hagaajiso ayaa loo baahan yahay sheekho maalintii ka warreemi waxaa dhacdo buu yidhi gabadha marka la doonaya in waalidka laga soo doono laakiin hadhow markii ay reer noqoto hadday waxa weeye canjeerada xumayso in la yidhaha waad furan tahay sidga loo yidhaha hadhow waxa weeye saasoo kale ma aha hadday waxa weeye wax kaga yimaado sidaa hadda waxa weeye quruxda badan waa inaad haddana waay waalidkeed iyo odayaal iyo soo gaarsiiso ilaahi subxana wataala wuxuu leeyahay waxaa weeyaan maaragtay wa in khiftum shiqaaqa baynihima fabcatu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha haddaad labada qof ee isguursanaya khilaaf dhexdooda ka baqdaan waxaa u saartaan dad mas-uuliyiina oo xagga marka reerka xagga gabadha iyo xagga marka ninka ka socda iyagaas laaxinaya oo reerkii hagaajinaya wixii marka maslaxadooda garanaya marka ina waanku furay oo sida marka soomaalidu ay si fudud isu yidhaha maaha gabadha horta inaad iska carato maaha waa ina marka waxa weye reernimada iyo mas-uuliyadda iyo marka arrintaas la qaado oo marka aad maanta ku ridato way ku saaran tahay maanta laga bilaabo markaad meherka hadda kadib waxay ku cafido mooyeen wixii meherkii kow cuntadii cabitaankii suubiga insha allahu tacaala marka intaan waxa weeye waa xagga wiilka qaraabadii waa saasoo kale jirto oo jawaabaheedna marka insha allah من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أزوجك وأنكحك سعاد عبد الغني أحمد ومهرها 100 جرام ذهب وشهداها هؤلاء الناس كلهم. سعاد عبد الغني أحمد ومهرها وقال كرام الذهب يباع عن حال markhaatiyaduna ay yihiin dadkan oo dhan maartay ay yihiin ina laba qof naasi ayno Axmed iyo dadka magaca ma Abdulwahab si gaar waxay yihiin marka waa ma bashay ku guursanay masha Allah ku guuri oo marka gabadha la waqashay Sucaad Cabdi Qani Axmed meherkeedu yahay 100 garaam oo dahab ah meherkeedii ay waqashay وأقول مارتي مخاطرنا هي أحمد يو شيخ عبد الوهاب واقع شنوكاس بارك الله فيك وبارك عليكم آمين لا سبحان سبحان كريم لا سبحان رب آمين لا سبحان كريم لا سبحان تعالى كل سبحان لا سبحان أولاد 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 تعالى بارك الله أولاد بارك الله ذلك الأول الصلاة ذلك الأول الصلاة إننا نحاول إلى ندرس ما أنت نحاول دراسة من أرسل بارك الله فيكم إله فضي ولي بالله الله فضي وصار إلى يا سبحان الله ما تحاول ما ممكن إنه صعب كده إنه هذا ما شاء الله صاروا ودي لا قلنا واحد عم ينشر لو فرح واحد كله نروح على كم